gabdhaha Soomaaliyeed waa la dulmiyay qudbasarada eber loogu dhigay intaasana dhax marka aniga ma difaacin xildhibaano hadalkaasna ma dhigay gabdhaha Soomaaliyeed sharaf iyo karaamo mudan yihiin waa in boqol geela laga bixiyo waa in la maamuso marka inaad tiraahdo halala dhuunto gabdhaha Soomaaliyeed warqadda ka qaatay warqadda anagu waxay sameynaa mashruuca qolo loo xiriyaa si lacag uga helaan laakiin wasiir waxa noo cadaysaa qodobka ama meesha aad cuuskatay inay qudbasiradu ay banaan tahay xildhibaan waxa ka xumahay aad uga xumahay adigoo wax xubsani dadka sheerka iyo like saarayo inaad dadkaas ka dhageysatay hadalkeeya si fiican uma dhageysan gabdhaha Soomaali shaafi ay tahay maanta ku metela halka Soomaali ka dawlad ahaan ka golaha wasiirada gabdhaha Soomaaliyeed waxa laga hadlayo waxay tahay gabdhaha sharciga wasaaradda arrimaha gudaha ee soo bandhigtay arrimaha ku saabsan certificate dhalmada ilmaha marka la dhalo shahaadada loo sameeyo dhimashada iyo guurka iyo furiinka arintaas bogaadinayay oo ku faraxsanaa in la diiwaan gelinayo taasna marka ka hadlay ee tayna bogaadinayo talana waxa ku darsaday aniga xaqna uma lihi ina aniga wax amro ama wax fasaxo xildhibaan aniga waxa dhahay waxay tahay halkan waxa ku bogaadinaya arrimaha la sameeyo oo ku faraxsanaa in dadka diiwaan gelinayo wasiiro waxa codsanaa ee tahay talooyin soo jeedina ee tahay sidii Soomaaliya ay ahaan jirtay ina degmo walba laga diiwaan geliyo oo sheekh oo jiray hore u jiray ina la sameeyo maadaama la diiwaan gelinayo ee xalaal ee tahay oo guur official u yahay oo degmo walba adduunka way ka jirtaa Soomaaliya way ka jirtay taladaas soo jeediyay laba waxaana ku daro kabsan ugu daro waxay tahay gabdhaha Soomaaliyeed waa la dulmiyay qudbasarada eber loogu dhigay intaasana dhax marka aniga ma difaacin xildhibaano hadalkaasna ma dhigay waxaana ka leeyahay waxay tahay wasiir dib ugu noqo hadalkeena oo ku jira meeshaas hadal la sameeyay adduunka hadda maalmo hadalka waa la bedela intaas dhahay